maamulka xarun lagu hayo muhaajiriinta oo ku taala bariga magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ayaa sheegay in 14 muwaadin oo Soomaali ah dib loogu celiyo dalkooda. Muwaadiniintan ayaa u badan dhalinyaro laga dhoofiyay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Mitiga, iyagoo howsha dib u celinta ay ka kaashadeen hay'adaha ay qusayso sida lagu sheegay war ka soo baxay maamulka xarunta. Maamulka xarunta ayaa sheegay in dib u celinta muhaajiriintan ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo socdaalka aan sharciga ahayn iyo dadka isku dayaya inay Liibiya uga sii gudbaan dalalka Yurub. Waxa kale oo maamulka xarunta tilmaamay in howlgallada la xiriira dib u celinta iyo sidoo kale musaafiriinta muhaajiriinta ay socon doonaan iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin xaaladda iyo sidoo kale duruufaha ay muwaadiniintan ku jireen kahor inta aan dib loogu celin gudaha Soomaaliya. Liibiya ayaa muddo dheer ahayd marin muhiim ah oo ay isticmaalaan muhaajiriin iyo sidoo kale mangalyo doonaya inay uga gudbaan badda Mediterranean-ka, gaar ahaan kuwa hiigsanaya dalalka Yurub. Dalka ayaa sidoo kale hoy u noqday kumanaan muhaajiriin ah oo ku jira xaalad adag, kuwaas oo qaarkood lagu hayo xarumo ku yaala gudaha dalkaasi. Muhaajiriinta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka ku safra wadada loo maro dalka Liibiya, iyadoo qaar badan ay wajahayaan khataro ay ka mid yihiin xariga, tahriib, tacaddi iyo xaalado kale oo nololeed oo adag. Dib u celinta 14 muwaadiniin ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda Liibiya iyo sidoo kale dalalka kale ee waqooyiga Afrika ay xoojinayaan tallaabooyinka lagu xakameynayo socdaalka aan sharciga ahayn. Arrintan ayaa sidoo kale dhalisay walaac ku saabsan xaaladda muhaajiriinta ku jira xarumaha lagu hayo iyo sidoo kale habka loo maareeyo dib u celintooda. Inkasta oo maamulka xaruntu ku sababeeyay tallaabada xakameynta socdaalka sharci darrada ah, haddana muhiimad gaar ah ay leedahay in la hubiyo in dib u celinta muhaajiriinta lagu sameeyo hab waafaqsan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha.